السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. subaxnimo wanaagsan kusoo dhawaada wararka Cumar Janaal. Madaxweynaha Galmudug Geele Xaaf ayaa saakay waxa uu qoraal ku sheegay in uu joojinayo dhammaan wax ka socda Galmudug. Mid kamid ah musharaxiinta Galmudug Odawaay ayaa sheegay in ay kala qaybinayso dowladda Soomaaliya. taliyaha xoogga dalka Soomaaliya Odawaay Yuusuf Raage ayaa u ambabaxay beledweyne si uu ula kulmo ciidamada Mareykanka. Dowladda Kenya waxa ay xirxirtay macallimiin Soomaaliyeed. Madaxweynaha Kenya ayaa si safar aan la shaacin ku tagay dalka Kenya. Waarana waxa uu la kulmay safiirka u fadhiya dalka UK si uu ula hadlo arrimaha doorashooyinka. Kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsan.